بسم الله الرحمن الرحيم فيد wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan duqeyn kala duwan ayaa ka dhacaysa iminka degmooyin iyo waliba deegaano muhiim ah oo ku yaala gudaha wadanka Iran jasiirado iyo waliba goobo istiraatiiji ah ayaa la duqeeyay Trumpna waxa uu leeyahay Iran iyada ayaa mashaakil cagaheeda isku galisay ciidamadeenu waxay qaadi doonaan talaabo kasta oo wadankaasi lagu curiyaaminayo ayuu yiri go'doonkii wadanka Iran ee dhinaca badda ayaa la soo celiyay dawladda Shiinaha si weyn ayay uga digaysaa dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe Iran maanta waxay daakum ka dhigtay oo ay garaacday qaybo kamid ah wadamada Carabta wadanka Kuwait daqiiqad walba waxa baxaya dhawaqa seerida degniinta oo laga baqayo colaadu inay sii baahdo wariyaha telefishinka Al Jazeera halkaasi jooga waxa uu leeyahay tan oo kale Kuwait waa u dhinayd inkastoo ganacsiga iyo duulimaadka diyaaraduhu ay caadi yihiin waxaynu sidoo kale eegi doonaa Israa'iil oo wadnaha farta ku haysa ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu leeyahay haddii la ina soo weeraro waxaan dhigi doonaa lama arag lama samaqal ayaa ka dhici doonta kooxihii gobolka jooga ee gacan saarka la lahaa wadanka Iran waa soo rogaal celiyeen waxana ay ku soo biireen dagaalka mise wadan oo carbeed ay maanta garaaceen waa sidee xaaladda Yemen qodobadaas iyo waliba dhacdooyinka ugu waaweyn ayaynu eegi doonaa khiyaarta ay nala socotay iyo waliba dhaqdhaqaaqyo xooggan oo caawa ka soconaya aagga badda cas dhamaantiin ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara waxaan ahay Cabdicasiis Barrow ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonayso inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu waqtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma ka raageen lacag aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi Safari Remit ayaa ka haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo ku sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay ku saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka ku muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteena www.safariremit.com Safari Remit lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare caawa ee gobolka bariga dhexe maaha mid siraadan dagaalo duqeyno iyo waliba cabsi xoog leh ayaa ka taagan meel walba ciidamada wadanka Iran waa Keblayorur oo dhinac waxay uga jiraan difaac halka dhinaca kalena ay ka garaacayaan saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay gobolka wadanka Kuwait maanta waxay u ahayd mid xaaladiisu ay adag tahay jasiirado kala duwan oo ku teedsan gacanka istiraatiijiga ah ee Hormuz oo gudaha wadanka Iran ahna waxa iminka laga soo sheegayaa qaraxyo waaweyn oo ka dhacay Bandar Abbas jasiirada Qashab iyo kuwa kale oo kamid ah koonfurta wadanka Iran caawa waxa la leeyahay xaaladooda maaha mid degan haddii aan eego qaraxyo iyo duqeymo xooggan ayaa fiidnimadii caawa laga maqlay deegaano kala duwan oo ka tirsan wadanka Iran iyadoo ay sii xoogaysanayaan iska horimaadyada military ee u dhaxeeya Mareykanka iyo dawladda Iran warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in ay xiisadu ay mar kale isku bedeli karto dagaal buuxa oo aad u adag kaas oo galgali karaya gobolka bariga dhexe ciidamada Mareykanku waxay qaadayaan talaabo kasta oo ay doonayaan wadanka Iran in ay ku curyaamiyaan isla markaana ay cunaha ku qabtaan dawladda Tehran wakaalada wararka ee Faris ayaa ku waramaysa in qaraxyo laga maqlay jasiirada Qashab oo ku taala meel u dhow marinka Hormuz iyadoo deegaanka Masan ee jasiirada lagu soo waramayo in dhowr jeer bartilmaameedyo soo noqnoqday ay ka fuliyeen ciidamada cirka ee kuwa Mareykanka saacadihii la soo dhaafay telefishinka dawladda Iran oo arrintan si aad u tabinaya waxa uu sheegayaa in 5 qarax ay ka dhaceen galbeedka magaalada xeebta ah ee Bandar Abbas oo ku yaala saldhigga ugu weyn ee ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran inkastoo aan la bixin faahfaahin dheeraad ah magaaladaasi waxay ka mid tahay meelaha uu Mareykanka maalmihii ugu dambeeyay ku qaadaya weerarada xoog leh isagoo doonaya in uu ku curyaamiyo dhaqdhaqaaqa military ee dawladda Iran
sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka Bushahar ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay duqeeyaan magaalada oo ku taala baa layiri oo xarunta kaliya ee tamarta nuclear-ka Iran oo halka ku-xigeenka gudoomiyaha gobolkaasi Bushahar uu sheegay in 4 goobood oo magaaladaasi ah ay duhurkii ilaa iyo caawa ay haleeleen dhowr ka mid ah sawaariiqda ay tuurayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Iran. dhinaca kale wakaalada wararka ee dowladdaasi ee erna lagu magacaabo waa Iran waxay sheegeen in galabta oo Salaaso ahayd la duqeeyo goobo shidaal oo ku yaala gobolka Quristaan oo koonfur galbeed Iran samarkaana ku dhow xadka wadanka Ciraaq. weeraradu waxay sidoo kale gaareen baaliri magaalada Abadan oo leh xarunta sifaynta shidaalka ee ugu da'da weyn bariga dhexe iyo magaalada xeebta ah ee la yiraahdo Mashhar oo caan ku ah baaliri warshadaha batroolka iyo kiimikooyinka wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. dhammaan markaad eegto duqeymaha istaba jooga ah dhacdooyinka weerarada iyo waliba gulufka ciidamada Mareykanku waxa ay yihiin kuwa si gaar ah ugu qotoma in ay curyaamiyaan ilaha dhaqaalaha ee dowladda Tehran tan oo ka dhigan dagaalku inuu noqon karo mid faafo oo guud ahaanba gobolka bariga dhexe aad u gelgeli doona haddii dowladda Iran ay cawaaqibka culeyskan isla soo kulantana waxa ay qubradu ka digayaan xaaladdu inaanay ahayn mid sahlan. madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Isniintii kuna hanjabay in Iran uu ku qaadi doono weerar xoogan oo socon doona xalay ilaa iyo maanta oo Salaaso ahayd sida muuqanaysana Trump iminka weeraradiisu waa uu hirgeliyay. Mareykanka waxa uu habeenkii saddexaad oo xiriir ah ay weerar ku qaadeen Iran baaliri saacado ka hor xilligii la qorsheeyay in uu dib u dhaqangeliyo go'doominta badeed ee dekada Iran. inkasta oo Trump uu sheegay in uusan wali albaabada ka xiran suurtagalnimada heshiis diblomaasiyadeed oo la gaaro. Trump waxa uu muuqata miisaskii wada xaajoodka ee gobolka bariga dhexe in looga taagroonaaday oo dhinaca Farisiyiinta waa Iran ay sameynayaan dhaqdhaqaaqii ugu xooga badnaa taasoo Mareykanka gelisay culays xoog leh iyo waliba gardhigashada mararka la isku yimaado in fagaaraha wada hadalka looga adkaanayo hase ahaatee cuntamila yahay inuu qaato arrintaasi maadaama codad ciidan iyo quwad askareed uu ku tashanayo. korarka colaadda ayaa qatar gelinaya dadaalada diblomaasiyadda ee lagu xoojinayo heshiiskii afgaradka ah ee la saxeexay 17 Juun oo ku dhawaad bil ay hadda ka soo wareegatay waxaana sidoo kale ay saameyn ku yeesheen baaliri suuqyada caalamiga ah iyo qiimaha shirkadaha waaweyn ee adduunka oo hadda bilowday inay aad u hoobtaan. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM la yiraahdo ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen duqeymihii socday ku dhawaad 5 saacadood lagu beegsaday bartilmaameedyo military oo ku yaala koonfurta Iran gaar ahaan magaalooyinka Bandar Abbas iyo Bushehr. sida CENTCOM ay sheegeen bartilmaameedyadu la weeraray waxaa ka mid ahaa nidaamyada difaaca xarumaha lagu kaydiyo hubka iyo waliba dhaqdhaqaaqyada militariga ee dowladdaasi Mareykanku ay leedahay. dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka oo maanta ka hadlay duqeymaha ay sameynayaan ciidamadiisa ayaa waxa uu soo bandhigay in dowladda Iran hoggaankeeda ay ku socdaan wada qaldan isla markaana wadankaasi cagaha u gelin doonta buu yiri mushkilad weyn oo wajahi doonaan ilaa iyo 90 milyan oo qof oo tirada dadka wadanka Iran ay iminka ka kooban tahay. madaxweynaha dowladda Mareykanka ee dagaalka ku jira Donald Trump ayaa Salaasada sheegay in hoggaanka Iran uu dalka u horseeday buu yiri burbur weyn isagoo ku eedeeyay in ay yihiin hoggaan been badan oo rabshado ku dhisan waa sida Trump uu doodiisa u dhigay. hoggaanka beenta badan ee rabshadaha ku dhisan ee Iran waxa uu dalka ku wadaa burbur laxaad leh mana awoodo dowladda Mareykanka inay hor istaagaan ayuu ku yiri doodiisa caawa. waxa kale uu sheegay in marinka Hormuz uu furan yahay dhammaan maraakiibta caalamiga ee halkaasi maraysa. hadalkan ayaa sidoo kale waxa ganafka ku dhuftay dowladda Iran oo ku tilmaantay Trump nin been adduunka ku sabaya oo wararkiisa aan la qaadan karin iyadoo dhinaca kalena lagu soo waramayo markab shidaal waday gacanka in lagu weeraro maanta oo ay soo gaareen
waxyeello xoog leh sida ay tabinayaan warbaahinta kala duwan ee gobolka bariga dhexe caawa faaqidaya. hadalka Trump waxa uu imaanayaa habeenkii saddexaad isagoo duqeyn xoog la wada. xiisadda sii kordhaysana waxay iminka u muuqataa in ay faraha ka sii baxayso. dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in laba ka mid ah maraakiibteeda maanta ay haleeleen weerar gantaalo ah oo ay ku eedeeyeen Iran, kuwaasi oo sababay dhimashada hal shaqaale oo u dhashay wadanka Hindiya. dowladda Hindiya oo arrintaasi ka galgalatay ayaa safiirkeedii Iran u fadhiyay wadanka gaar ahaan magaalada New Delhi ashtaka u gudbisay kana codsanaysa in si degdeg ah loo jawaabo oo la aqbalo baa yiri warka ka soo baxaya. Iran dhinaca kale maanta ilaa iyo dhowr saldhig oo ku yaala wadamada Khaliijka ayay si la yaab leh u garaaceen ciidamadeeda iyagoo ka jawaabaya duqeymaha aadka u kulul ee lagu qaaday goobaha istiraatiijiga ah ee wadankaasi ku yaala. qaramada midoobay maanta dood adag ayaa ka dhacday oo guud ahaanba taabanaysa dagaalka Iran. Shiinuhu waxa uu aamusnaado markaan waa isceli waayay dhammaan eedaha dagaalka oo dhanna waxa uu dusha ka saaray dowladda Washington. Trump ma ogola nabad ayuu yiri. dowladda Washington kuma qanacsana xasilooni ka dhalato gobolka bariga dhexe ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Shiinaha safiirkeeda qaramada midoobay u fadhiya. kulan ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka dhacay dood adag oo dhaxmartay wakiilada Mareykanka iyo Shiinaha iyadoo looga hadlay xaaladda Yemen iyo xiisadda sii kordhaysa ee gobolka bariga dhexe. Mareykanka ayaa sheegay inuu si buuxda u garab taagan yahay dowladda Yemen iyo wadamada Khaliijka si looga hortago waxa uu ku tilmaamay qatarta kooxda Xuutiga oo ay taageertay Iran. dhibaatada ay ku hayaan gobolka bariga dhexe iyo gacanka Carabta ayuu yiri isagoo arrintaasi ka hadlaya wakiilka Mareykanka. wakiilka ayaa isagoo hadlaya waxa uu Iran iyo Xuutiyiinta ku eedeeyay weerarka maraakiibta ganacsiga isla markaana inay halis gelinayaan xasiloonida gobolka. Mareykanku waxa uu ugu baaqay Iran iyo Xuutiyiinta inay u hoggaansamaan go'aamada golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sidoo kale Mareykanka waxa uu sheegay in ku dhawaad 70% qalabka la isticmaalo ee dalka Iran ay Xuutiyiintu ay siiyaan baliri oo ka yimaado wadanka Shiinaha, isagoo xusay in Washington ay sidoo kale wado dadaallo diblomaasiyadeed oo ku aadan arrintaasi. dowladda Mareykanka oo weerarkaasi ka dhax bilowday fadhiga golaha ammaanka ee maanta. dowladda Shiinuhu afka ma qabsan laakiin waxaad moodaa dagaal ba'an oo diblomaasiyadeed in ay ku qaadeen dhinaca Mareykanka ee ka soo horjeeda. wakiilka Shiinaha ayaa eedda dusha ka saaray Mareykanka isagoo sheegay in Washington ay bariga dhexe ku raacday dagaal xoog leh isla markaana uu diiday eedeymaha Mareykanka oo u jeediyay Beijing. waxa uu intaa ku daray in xiisadda hadda ka jirta gobolka ay si toos ah u saameeyeen amniga badda cas isla markaana loo baahan yahay in la dejiyo xaaladda aadka uga sii daraysa. wakiilada Faransiiska iyo Bahrain oo iyagana ku baaqay in si degdeg ah looga hortago colaadda ayaa halkaasi ka hadlay. Mareykanka oo ku eedeeyay Iran taageerada Xuutiyiinta ayay sidoo kale dowladda Shiinuhu aad u diideen. waxaa muuqanaya dhinacyada hadda inay aad isku hayaan ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iranna loo taag la'yahay marka la fiiriyo sida ay hadda waxyeelayaan dowladihii Carabta oo hoyalla harsanala marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. bal aneego Kuwait oo hadda la leeyahay nolosha iyo waliba dagaalku waa ishareero socdaan. wadankaasina waxa uu ku dadaalayaa sida garoomadiisa diyaaradaha aan u xirmi lahayn. muxuu tabinayaa telefishinka Al Jazeera. wariyaha telefishinka Al Jazeera ee dalka Kuwait Maxamuud Saybaq ayaa sheegay in xaaladda dalkaasi ay wali tahay mid degan inkastoo ay jiraan weeraro cusub oo Iran ay qaaday. sida uu sheegay wariyaha garoonka diyaaradaha ee Kuwait ayaa iminka waxa uu yahay mid shaqaynaya hase ahaatee xiisaddu waxay u muuqataa mar walba inay cabsi tahay oo dowladda shacabkeeda ay ugu baaqaysa gabaadka inay ku dhawaadaan. wasiirka amuraha dibadda ayaa bayaan uu soo saaray waa boqortooyada Kuwait waxa uu sheegay in weerarada Iran iyo kooxaha taageera ay ka fuliyeen maalmihii la soo dhaafay ee beegsadeen xarumaha xuduudda dhanka waqooyi ee dalka ku yaala. sidoo kalena ay goobta qodista shidaalka oo ku taala biyaha gacanka Kuwait maanta la weeraray, taasoo ka dhigan in dowladda Iran goobaheeda istiraatiijiga dhaqaalaha ee la weerarayo
kuwa lamida ay maanta aad u garaaceen bayaanka ka soo baxay dowladda Kuwait waxaa lagu yiri xiisadani waxay u muuqataa in aan la iska indhatiri karin marka guud ahaantiiba hadda la fiiriyo sida ay wax u socdaan bariga dhexe waa bariga dhexe xiisadiisu waa culus tahay walaac badanna waa laga muujinayaa hadda in ay wax weyni ka socdaan ilaa iyo hadda waxaa la soo warinayaa war degdega oo hadda soo baxaya Kuwait inay weerar ku socdo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo hadlayna shir ka dhacay magaalada Najaf la yiraahdo gaar ahaan oo looga hadlayo qorshaha istiraatiijiyadda amniga oo magaalada Dimona ka socday waxa uu sheegay in ay diyaar yihiin ciidamadiisa oo ay doonayaan dagaalka inay ku biiraan hase haatee hadda uusan u socon inuu colaad galo laakiin uu dagaalka ku biirayo haddii ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay soo weeraraan goobihiisa dhaqaalaha ee istiraatiijiga ah caawa bariga dhexe waa bariga dhexe ciddii xoog badan ayaa ku hoyanaysa baryada diblomaasiyaddana baal ayaa la iska dhigay khiyaarta nala socotay dhinacyadaasi ayaynu eegi doonaa taxanayaasheenan soo socda ee caawa fadlan indhaha ku hay halkan dhinacyadu waa isku hanjabayaan goor kasta tallaabo ayaa dhacaysa ciidanka Yemen waxay bilaabeen inay handadaan kooxda Xuutiyiintana waa Cable Euro oo suuragal waxay tahay in ay weerar ku qaadaan Sacuudiga aad baad u mahadsantihiin